24 Noofembar sanadka 1984 maalin Sabtiya ayay diyaaradii Somali Airlines nooceedu ahaa Boeing 707 flight lambarkeeduna ahaa 415 duuliyana uu ka ahaa Maxamuud Xaaji Cilmi oo lagu magacaabi jiray Xaaji Dhagax ayaa waxay ka kacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyadoo ku sii jeeday Jidda Saudi Arabia laakiinse ku sii hakan lahayd magaalada Berbera. haddaba diyaaraddaasi ayay markay 30 daqiiqo hawada ku jirtay ayaa waxaa xoog kula wareegay 3 nin oo naftoodurayaal ahaa. ugu horreyna waxaa shirka diyaaradda laga hago si xooga ku galay Caawil Cadami Burhani oo dharka ciidamada markaasi ku labisnaa, laakiin waxaa isku martay gabadh shaqaalaha diyaaradda ka mid ahayd oo la odhan jiray Sucaad Maxamed. intii uu gabadha iska furfurayay ayaa waxaa soo gaadhay nin kale oo ka tirsanaa shaqaalaha amniga ee diyaaradda. markaasi ayuu Caawil Cadami inta uu baastoolad la soo baxay ku dhuftay ninkii, markaasina waxaa kala cararay shaqaalaha diyaaradda. kabtankii oo markaasi shirka diyaaradda ka soo baxayna waxa uu dib ugu laabtay shirkii diyaaradda. sidaasi ayayna hoggaanka diyaaradda kula wareegeen Caawil Cadami Burhani, Baashe Muuse Maxamed iyo Axmed Xaaji Maxamed. waxay u sheegeen duuliyaha diyaaraddu inay saacaddaasi laga bilaabo ay diyaaraddu aftuuban tahay, halka ay ku dhahaan ka dejina uu ka dejin doono. duuliyaha ayaa arrinkaasi aqbalay, waxayna ku yidhaahdeen waxaad naga dejisaa magaalada Cadan oo xilligaasi caasimadu ahayd waddankii koonfurta Yemen la odhan jiray. duuliyuhu intuu markaasi qaatay amarkooda waa uu aqbalay, waxaana uu isku dayey inuu ka dejiyo Cadan, laakiin Cadan iyo dowladdii koonfurta Yemen way diideen in diyaaraddaasi ay Cadan soo caga dhigato. xilligaasina waxaa caalamkao dhammi ogaadeen in diyaaraddii Somali Airlines aftuuban tahay, waayo dowladda koonfurta Yemen ayaa arrinkaasi caalamka u gudbisay. xilligaasi kadibna diyaaraddu u aftuuban tahay waa laga war helay. mar kale ayaa 3 nin ee diyaaradda aftuubtay waxay duuliyaha ka codsadeen inuu Jabuuti ka dejiyo, laakiin markiiba intii ay ka walaaceen ayay ku yidhaahdeen waxaad naga dejisaa waddanka Liibiya. markaasi ayaa duuliyaha diyaaraddu Maxamed Cilmi waxa ugu jawaabay inaanu shidaal ku filan diyaaradda ku jirin, isla markaasina gaadhsiiya Liibiya. markaasi ayaa aftuubayaashu waxay go'aanka mandabeysa ku gaadheen in caasimadda Itoobiya Addis Ababa laga dejiyo diyaaradda. sidaasi ayuu duuliyuhu ku aqbalay inuu diyaaradda ka dejiyo Itoobiya, waxayna diyaaradda Somali Airlines caga dhigatay 11 subaxnimo 24 Noofembar 1984 garoonka caalamiga ee Bole International Airport ee caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa. kadib markii ay diyaaradii Somali Airlines soo caga dhigatay garoonka diyaaradaha ee caasimadda Itoobiya Addis Ababa iyadoo sida 130 qof, kuwaasi oo kala ahaa 118 qof oo rakaab ahaa iyo 12 shaqaalaha diyaaradda ahaa. rakaabka diyaaradda waxaa ku jiray 7 qof oo ajnabi ah, 2 Talyaani ah, 1 qof oo ka soo jeeda koonfurta Yemen, mid diblomaasi Masri ahaa, mid ka soo jeeda Mareykanka, iyo mid ka soo jeeda waqooyiga Yemen. waxayna isla maalintaasi oo Sabti ahayd kuna beegneed 24 Noofembar 1984 wadahadal u furmay dowladda Itoobiya iyo aftuubayaashii diyaaradda. aftuubayaashii ayaa ugu horrayn oggolaaday inay sii daayaan 15 dumar iyo 4 carruur oo diyaaradda saarnaa, iyo weliba 3 qof oo shaqaalihii diyaaradda ka mid ahaa oo mid ka midii uu dhaawac ahaa. aftuubayaasha oo u hadlay hoggaamiyahoodii Caawil Cadami Burhani waxa uu dalbaday in dilka lagu filinayo beritoole oo ahayd 25 Noofembar maalin Axada 1984 7 arday ah oo ku xidhnaa jeelka Mandheera la joojiyo, iyo in maxaabiis u xidhnaa arrimo siyaasadeed oo 14 qof ahaa la sii daayo loona gudbiyo waddanka Jabuuti. Cadami waxa uu si cad ugu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya haddii ardaydaasi berri la laayo inuu isna midhmidh u toogan doono madaxda dowladda Soomaaliya ka tirsan ee saarnay diyaaradda, kuwaasi oo ka mid ahaa badhasaabkii gobolka Hargeysa ee xilligaasi Ibraahim Cabdi Muuse Afgaab, iyo inuu diyaaradda qarxin doono berrito. dhibtii ugu weyneed ee jirtay xilligaasi waxay ahayd in dowladda Itoobiya iyo Soomaaliya wax xidhiidh ah oo diblomaasiyadeed oo toosi aanu ka dhaxayn. markaasi waxaa dhacay in dowladda Talyaaniga oo 2 nin diyaaradda ka saarnaayeen ay soo dhex gasho arrinka, iyadoo safiirkeedii magaalada Addis Ababa u joogay u xil saartay inuu arrinkaasi galo. arrinkiina waxa uu noqday in aftuubayaashu waxay
dalbadeen loo gudbiyo dowladda Itoobiyana u sii gudbiso safaaradda Talyaaniga markaasi kadibna Talyaanigu u sii gudbiyo xukuumadda Muqdisho waxayna ku jawaabto uu isagu ka soo qaado haddaba arrinka dilka ee Cawil Cadami oo hore ciidamada asluubta uga tirsanaa uu soo bandhigay ayaa waxay la yaab ku noqotay saxaafadda iyo dowladaha caalamka xilligaasina saxaafad badan oo abaari Itoobiya ka dhacay ka soo waramayay ayaa joogay Itoobiya laakiin markan hawlahooda oo dhanba waxay u wareejiyeen inay ka waramaan xaaladda iyo afduubka diyaaradda Somali Airlines isla habeenkii Sabtidii oo ahayd 24 Noofembar 1984 waxay dowladda Soomaaliya ku soo warcelisay inaanay jirin cid beritoole la laynayo waxa kale oo ay sheegeen inaanay ogolaan doonin waxay afduubayaashu dalbadeen waxaana dhacday muddo 5 jeer ah ay afduubayaashu marba dib u dhigaan xilliga kaba dambaysta ah ee ay qarxin doonaan diyaaradda Somali Airlines aakhirkiina waxa si toos ah wadahadal u galay 27 Noofembar 1984 madaxweynihii Soomaaliya xilligaasi waxaana uu maalintii ku xigtay oo ahay 28 Noofembar 1984 uu soo saaray war saxaafadeed laga akhriyay raadiyo Muqdisho kaasi oo ku shaacinayay in dowladda Soomaaliya ay aqbashay wixii ay dalbadeen afduubayaashu ayna joojiyeen dilkii ay ku fulin lahaayeen ardayda dhawaqa dowladda Soomaaliya ka soo yeedhay waxa uu soo afjaray 75 saacadood oo wadahadal u socday iyaga iyo mujaahidiinta afduubay Somali Airlines waxayna mujaahidiintu aqbaleen dhawaqaasi lagaga noqday dilka ardayda waxayna ooda ka qaadeen rakaabkii saarnaa diyaaraddii Somali Airlines 28 Noofembar 1984 markii ay diyaaradda sii daayeen ayuu Cawil Cadami shir jaraa'id ku qabtay qolka nasashada ee aeroboortka Addis Ababa hadalladiisina waxa ka mid ahaa ma nihin anagu argagixiso waxa kaliya aanu diyaaraddu u aftuunay waa inaanu badbaadino walaalahayo Cawil Cadami isagoo hadalkiisa sii wata dhool cadaynayana kana hadlaya baqdinta haysay madaxdii Soomaalida ee diyaaradda saarnay siiba barasaabka Hargeysa Afgaab ayaa waxa uu yidhi aad ayuu cabsoonayay Afgaab oo hinayuu ku waashay waxaana uu haystay inaan dilayno laakiin waxaanu sheegnay inaanan dilayn sidaas ayay dowladda Itoobiya magangelyo ku siisay Cawil Cadami iyo 4 nin oo la socday